kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada qaybtii saddexaad warbixinaan kaga hadli doona furayaasha guusha. warbixinada oo joogto ah waxaad kula socon doontaan Gurmud Media subax walba xilligan oo kale. haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe channelkan si aad u hesho qaybaha kale ee warbixinadan. maanta wuxuu ku saabsan yahay mowduuceena wax ka baro astaamaha ugu waaweyn ee guusha lagu gaaro. dejinta hami iyo higsi isbedel joogto ah. dhammaan dadka raba inay nolosha ka sameeyaan guul waxay naftooda ku qanciyaan inuu isbedel waajib yahay. waxay hoos iyo korba dadku codkoodu gaaro ugu sheegaan in isbedel loo baahan yahay. waxaase mararka qaar dhacda in lagu arko qof qaldan balse waa wax nolosha ku caadiya. nabiyullaahi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa allaha yeelay ayaa tusaale fiican kugu ah iyo dhammaan dadka nolosha horumarka ka sameeyay mid kastoo noloshiisa baara. inaad mar labaad sameyn qalad aad horay u samaysay. taasi micnaheedu maaha in haddii shay mar ku guuldaraysato inaad mar kale ku guuldaraysanayso, laakiin waxay tahay in aad wax ka barato qaladkaagii hore. humaag iyo qanaaco. isbedelka noocoo noqonayo. dhammaan dadka nolosha ka sameeyey horumarka waxay ku qanacsan yihiin inay gaaraan meel ka fiican halka ay joogaan. dhammaan waxay madaxo ku haystaan sawirro ka turjumaya nolosha hayaanka ku yihiin. waxay markaad la sheekaysato ama aad akhrido buwaagta taariikh nololeedkooda ka arkaysaa riyo waqti ay soo jeedeen, taasi oo adiga kula muuqata hir balse isaga ula muuqata xaqiiq. waana tan dhaxal siisay isaga gaaridda nolosha uu rabay. dadaaliye karti dheeraad ah. dhammaan dadka micnaha sameeyey ee kugu xeeran haddii noqoto shiikh iyo shariifba mid kasta waxaa ku noolaanayaa habeenkiisii iyo maalintiisii intii uu gashaday. taasina waa mida dadka kala sarraysiisa ee guulaystay iyo guuldarraysa ka dhigta. samir iyo dulqaad. u fiirso dadka wax ah ama aad farta ku fiiqdo ee noloshooda ku xeeran iyo dhammaan dadka saameynta tooskaa ku leh nolosheena. ma jiro qof habeen ku gaaray nolosha uu gaaray, mana jiro qof saacadaha tiriyey si u gaaro nolosha uu rabo, balse qof kasta waxa uu huray waqti dheer isagoo muujiyey samir iyo dulqaad xaddhaaf ah. waana sababta ugu lahaa nabiyullaahi maxamed asxaabigii yiri alla inoo bari dadkan ciqaabaya si uu nooga kaafiyo. samra ilmo yasirow, ballantiinu waa janne. taasi waa macnaha sheegaya samirka iyo dulqaadka. go'aan iyo xog saarid. ma jiro qof meel gaaray oo aan dadka fikirkiisa ku qancin soo xasuusto dhacdadii cajiibka ahayd ee suubanaheennii nabiyullaahi maxamed lagu yiri ina adeer hubka dhig aan ku siino waxaad rabto, suldaannimo, xoolo, haween qurxoon. ee inta aamusay ku yiri walle haddii dayaxa iyo cadceedda midba gacan layga saaro inaan ka tegin waxa aan ku taaganahay. dhammaan dadkan nolosha micnaha ka sameeyey waxay ahaayeen kuwa ku adag, waxay rabaan kuna qanacsan fikirkooda nololeed. guulaha iyo wax soo saarka cusub ee maanta la gaaray waa riyadii shalay. haddii aad u fiirsato waxyaabaha kugu xeeran sida dhismayaasha dhaadheer, maraakiibta, diyaaradaha, taleefanada, internetka iyo idaacaduhuba mid ka midkii daafuri riyadaadu waa meesha ay ka bilaabanto guul kastaba. waana cunsurka ugu muhiimsan ee waxqabadka. waxaa xusid mudan iyadoo aan riyadeennu aanay xaduud ahayn. waxaa yidhi hadalka Albert Einstein, riyadu waxay ka muhiimsan tahay aqoonta. arrimaha ugu waaweyn ee guusha lagu gaaro waxaa ka mid ah samirka, oo ah inaad adkaysi yeelato dhibaatada oo aanad ku degdegin. ilaahayna qur-aankiisa waxa uu ku yidhi samra oo dhabar adayga oo ilaahay ka baqa waad guulaysan doontaane. marka ilaahay guushu wuxuu ku xiray waa samir. waxaa kale oo ilaahay aayado fara badan kaga hadlay samirka abaalkiisu inuu yahay janno iyo khayr. marka aan ka hadlayno horumarka maadiga ahna waa inaad u samirto shaqada aad hayso ee aad ku hiigsanayso guusha aad rabtid. xagla laaban laguma gaaree. adu hays xaqirin inta aanay dad kale ku xaqirin. isku kalsoonow oo niyadu wanaaji, ilaahayna tala saaro markasta. ha u ogolaan dad kale inay hoos kuu dhigaan. waxaa xubaal ah inaad soo martay noloshaada guuldarrooyin fara badan. si kastaba ha ahaatee ha u ogolaan dadka kale inay ku niyad jabiyaan ama ay kugu tilmaamaan inaad tahay qof aan waxba qabsan karin. ma jiro qof wada wanaagsan
qof waliba qalad wuu sameeyaa. haddaba ku dhiirigeli naftaada inaad tahay qof wax qabsan kara, guulaysanayana. 10 ha ka baqan guusha. haddii aad ka baqdo wadada guuldarrada ayaad ku dhacaysaa. weligaana lagama yaabo in aad heshid guul ku imaan mayso adaa raadinaya. waad guulaysani insha Allah. 11 in qofku baaro waxyaabaha ugu baahan yahay inuu sameeyo si uu guulaysto iyo waxyaabaha ka hor istaagi kara guusha. 12 guushu kuu soo dhaweyn mayso, roogna kuu daadin mayso, adaa sameynaya. 13 tallaabada ugu horeysa way adag tahay laakiin adaa fududeynaya. 14 noqo qof jira, noqo qof la soo higsaday, noqo qof samir leh iyo dulqaad. 15 adu hays xaqirin intaanay dad kale ku xaqirin. 16 isku kalsoonow oo niyada wanaaji, ilaahay tala saaro waqti walba. haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe channelkan si aad u hesho qaybaha kale ee warbixinadan.